الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وولاشين جوار حسين halkan nagala socotaan oo channelkeena Jawaar Xuseen inoo musha waxaan rajaynayaa inaa caafimaad qabtaan sida aniga aanu caafimaad qabo. Allah subhanahu wa ta'ala caafimaadka inoo ziyaadiyo. Allah subhanahu wa ta'ala camaasheena hanaga aqbalo. Allah subhanahu wa ta'ala qof warbo muraad leh muraadkiisa macsileena siiyo. Allahumma aamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. runtii waxaa ku jirnaa ayaam alqeer ayaam iska barakaysan bil barakaysan falxamdulilah ilaahay subxaana watacaala ramadaanka nabad iyo barwaaqo ha nagu gaarsiiyo ilaahay subxaana watacaala amuurahena ha noo saqiro ilaahay subxaana watacaala insha allahu tacaala inta xanuunsanna ha noo caafiyo allahuma aamiin allahuma salli wasalim calaa sayidina maxamed qiso cajiibaha iga soo gaartay gabar ka mid ah gabdhaha igu xiran gabar ka mid ah gabdhaha i daawada oo asxaabteyda ah oo leh maasha allah gabdho badanaa arkaa jawaahirey dhiirgelina kaa qaaday jawaahirey wax badan istiqfaarta dikriga wax waan ku faa'iiday sida adinka dhiirigelin aniga ii ah runtii waay sababta sidaas u dhahay maxay tahay qoraaladiina markaa arko aan laftigeygu waa sii laba jibaara qoraaladiina markaa arko baawra sii qaadaa oo waxaan leeyahay maasha allah tabaaraka araxmaan jawaahire adigana sii laba jibaar runtii dhiirigelina ay tihiin ilaahay subxaana watacaala ha idin xafidee marka waxaa qisadan ila soo wadaagtay gabar ka mid ah gabdhaha mutaabiciinta ah ama gabdhaha i daawada hal maalin ayaan ku helay dhahday cajiib waa soo maahan hal maalin sidee ay ugu heshay waa wax lama filaan ah waa wax cajiib ah ilaahay subxaana watacaala markuu shay kula rabo qof waxaa laga yaabaa shimbir inuu kuugu soo dhiibo sida anigaba marka hore istiqfaarta iyo dikriga aan u fahamsaneen sida idin sheegay 2012 bay ahayd 13 bay ahayd 13 inaada jeclahay wiil ilaahay subxaana watacaala ii soo diray oo dhahay jawaahir wadri ugu dareemi karaa qof qadaama tahay qadaamana waa iska dhib badan tahay haddii aa awoodid sidaas sameey oo ah sidaas istiqfaarta badi astaghfirullah alcadiim alladii laa ilaaha illaa huwa alxay alqayuum wa atuubu ilayh ugu horeysa markaa baranaya istighfaarta subxaan allah iyo sayidat alistighfaar allahuma anta rabbii laa ilaaha ilaa anta khalaqtanii wa ana cabduka wa ana calaa ahdaka wa wacdaka ma stadacta acuudu bika min shari ma sanacta abu'u laka binicmatika calaya wa abu'u bidambii faaqfir lii fainahu laa yaqfir dunuuba ilaa anta haddii aa awoodid inaa kararisid mar walbo ani ma karariyo been ma idin sheegay oo adkaar sabaax adkaar masaa ku dara iyo habeenkii ebla noom hurdada ka hor sameeya laakiin istighfaarteeda caadiga ah aniga la qabsaday wata alxamdulilah marka allah mustacaan sidoo aniga ilaahay subxaana watacaala wiilkaas iigu soo diray anigoona aqoonin ifahamsiiyey anigana alxamdulilah qof walbo video dikriga ku saabsan arko oo weliba mar aa murugaysan tahay mar aa xaalo adag ku sugan tahay video dikriga hadduu kaasoo horbaxo ugu videogaas caadi maaha videogaas waa mucjiso ilaahay subxaana watacaala kuu soo diray fur videogaas fiirso dhammayso daawo kadibna dhiirgelina ka qaadaysaa kadibna ilaahay subxaana watacaala wuxuu kaaga dhigaya videogaas inuu risaalo kuu ahaa in videogaas xusuus uu kuu noqdo mar walbana dikriga allah subxaana watacaala carabkaaga uu la qabsado carabkaaga uu barto marnaba aadan naftaada ka faaruqi karin aad dareemaysaa biidn illah marka hadda gabadhan ilaahay subxaana watacaala intii tusay waxay leedahay jawaahirey hal maalin ayaa muraadkaygu ku helay hal maalin oo ilaahay subxaana watacaala waxa iigu saqiray dikriga allah subxaana watacaala marka waxay leedahay jawaahir fadliga saliga nebiga iyo istiqfaarta subxaan allah maalin keliya ku helay leedahay walaal jawaahir alle ha kaa raali noqdee aakhiro iyo adduunkaba allahuma aamiin runtii ducadiina sida igu soo duceysaan ma garan karo waxaa idinku tilmaamo familkayga tihiin walaalahayga tihiin ilaahay fardowsil aclaan hanagu kulmiyo allahuma aamiin abaay waxay leedahay walaal sabtidii oo yani waa hadda dhow waaye sa u jooga hal maraa risaalooyinka ama mesajyada furaa mesajka ugu hore indhahayga ku dhacdana aa soo koobiyeystaa ma fahamteen marka kana indhahayga ay ku dhaceen marka aaduna ii qanciyey waxaana jeclaystay kan in aan ka bilaabo qisooyinka aan idin soo gudbinayo ma fahamteen marka sabtidii waxay leedahay markaan salaada
duhur tukaday anigoo warwarsanay dhahday dabcan hooyo markaa tahay oo bebi aa haysatid garabna aadan haysanin xoogaa ciriiriyaa dareemaysaa nolosha kugu adkaanayso marka abaayadan bebi yaray haysatay aan haystay dhahday oo iyagu bilaa caano yahay yani subxaan allah waxaan u fahmay inuu wiil yahay caano ma haysto cunugna ma yaqaano waa la hayaa ilamaha intaba ma yaqaano wuxuu cuno waxay cunto u baahan tahay caruurtu waxay u baahan yihiin mar walbo waxay cunaan ma yaqaanin hooyadaa way haysaa hooyadaa ma hayso hooyadaa xagay ka keenaysa intaba ma yaqaanin ilaahay subxaana watacaala ubadka haynoo xafido allaahuma aamiin waxay leedahay lacag dayna laygu doonayo oon garan la-yahay waxaan sameeyo waxay dhahday dabcan lacag deynna waa laygu leeyahay dhahday waan garan waaye dhahday waxaan sameeyo cunugiina bebigiina caano la-aana iga haysay dhahday subxaan allah tusbax aan soo qaatay dhahday tusbaxii markaan soo qaatay dhahday hadda hal maalin waaye hal maalin markaa idin leeyahay ma ahan yani bil ma soo wadin abaa isbuuc ma soo wadin hal maalin waxay soo qaadatay tusbaxay soo qaadatay waxay dhahday waxaan sameeyey istiqfaartii waxaan sameeyey dhahday 500 oo istiqfaara sameeyey dhahday subxaan allah markaan 500 istiqfaar aan sameeyey aan aqriyay dhahday iyo 500 oo salaa calaa ibraahimiya ah salaata ibraahimiya dad badan waxay soo dhahaan maxaa waaye anigu maalin walba idin fahamsiiyo صلاة الإبراهيمية وحواي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد صلاة الإبراهيمية تاس أيالا لها رنتي آدي وناكسن تحي هدي أبوديد مالنتي إناد بقول أسميسيد كون أسميسيد شم بقول أسميسيد رنتي ورور هدوكو هاي إلهي سبحانه وتعالى وكها بابئنا هدي مال أمور أكل ضحي مراد أكل ضحي انت هذا انتقين ماشاس أقرسو إلهي سبحانه وتعالى وكها قسو سهلا ماشاس وحي ربانها هذا إلهي سبحانه وتعالى وكها قسو فضينا هدي عدو وكده بتاقينها إلهي سبحانه وتعالى وكاغا نجينا هدي جيركاغا سحر وكجرو إلهي سبحانه وتعالى وكاغا صوصارا صلاة الإبراهيمية marka waxay dhahday 500 salaat al-ibraahimiya 500 oo istiqfaarta ah markaan sida u dhameeyay dhahday wallahi waxaanan filan baa dhacay dhahday salaadii casr baan dhameeyay dhahday waan tukaday wallahi labadii shay aan doonayay dhahday meel aanan ka filayn buu rabbi iga siiyay لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بل فيري كبرا أني وهو باهرتا قاف ذكر الدائمي إنو سنديع مينين ولي بمركي مروك تكو هيسو يعني بالنية أي كاتا هاي الله مدري مكرتي والله المهم أني وحا أركا واي ما أنا وحا أنا إذا الشيء ما أهن وحا كلي قبل أني هاد كسو حكتي قبل قصيدة إيجا شيء كيسة ما أهن هذا وحا دعدي يعني أسبوع جوده هذا ميل أو لعج ليجا لها وحا أملي لعجتي إن لمينا أمليناي مركا هذا السوق مرجيناي إن العج يقول ليها أملي يعني سبحان الله الحمد لله استغفارت اي ولبا حوق لذا آد أو بضنها انيقا استغفر الله ولبا زائد أو بضنها ان حوق لذا لا حول ولا قوة إلا بالله وحلا يابا الله وبقول صدح بقول يعني مؤقاتي تيرو ان جهازك مؤقاتي جيتك لغو استغفارستو وافك كليا كانها لكن آد وبضيا فالله مستعان مركا lacagtii aniga isku murjinay waa mar hore dhameysay leeyahay maxaa ka qaldan mar hore dhameysay marka waxa dareemay inay mucjisooyinka dhikriga Allah subhanahu wa ta'ala aad ay u badan yihiin yani marka la dhahay lacag lagu ma laha wallahi ma aqaano waxa dareemay ma aqaano sidaas dhahay geedkii aasasku dhahay dayma u celiyo subhanallah ilaahi subhanahu wa ta'ala marka umahdiyo u shukriyay kadib geedkii aasas u fiiriyo wallahi ya Allah alhamdulillah wallahi ilaahi subhanahu wa ta'ala umahdiyo فمر والبن إلهي سبحانه وتعالى مركا أمها هذه كلية ما هنينا مركا وحشة أما مركا رباطة الله كلهم طيب مر والبرب سبحانه وتعالى عافماتك وكوسي إنا هذا الشيء تكون صورة تجري إنا وح يكتيد تكون صورة تجري إن أم حيرة أصلي وح أورسيد إن حمام أما سوري أجشد أساسون نظيف مركا إذا هاو فاهم كرتين حاجة مركا سوق يكون لجنتها مركا سوق
soo gudatid waxaasoo dhan yani ilaahaygi intaasoo dhan noo fududay noo saqiray in mar walba alxamdulilah aan dhahno u mahadnaqno mar walba ilaahay subxaana watacaala u mahadinana waa inuu ziyaadinaa kheyrka inuu ziyaadinaa rasiqu inuu sii waasicina ma fahamteen marka subxaan allah ma jirto qof dikriga daa'imay oo qasaaray qof dikriga daa'imay oo wadadiisa leexatay qof dikriga daa'imay oo maxaa yirahdaa si nolosha ciriiri ku dareema abadan ma jiro marka hore sax marka hore dembigaaga lagugu dhaafaa oo waxaad dareemaysaa ciriiriyaad dareemaysaa diiqaad dareemaysaa laakiin ogow marka hore ogow ilaahay subxaana watacaala marka dambe wuxuu ka dhigaa sida xaanshi oo kale sida warqadoo kale dembigaaga inta la dhaqaaday dhan waxaad dareemaysaa fudayd hool dhan meelay ka imaadaba ilaahay subxaana watacaala sahalo kaaga dhiga ilaahay subxaana watacaala siduu adduunkan wax walba inoogu fududeeyey dadka ahla dikriga dadka ah ilaahay si adduunkan dikriga wax walba idinku fududeeyey ama inoogu fududeeyey waxaan ka barinay in jannatul firdowsa gelitaankeeda noogu fududeeyo ilaan taas sahal laguma gale howlay rabtaa iyo shaqo iyo tacabay rabtahay ilaahay subxaana watacaala hanoo fududeeyo runtii aada ugu faraxsanahay abaayada qisadan ila soo wadaagtay waana ku farxay in badan an fahamteen marka walaashiin Jawhar Xuseen oo idin daadihinaysa oo idin la kusoo dhawaada channelkeena subscribe saara asxaabtiin la wadaag waxay dhaayeen hadda commentiga noo reeba like-tin dirginin oo tahay like noo saara facebookgeena follow na soo dhaha insha Allah khayr caafimaad iyo barwaaqo rajayna assalamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh